ujeedaan saad ujeedaanba dhammaantiin waxaad arkaysaa ninkan markaa lugihiisii iyo gacmihiisii midna aan lahayn saas darteed ay tahay haddana aan ku khashuucsan ama aad iyo aad ula dhacsan qaabkaa uu yahay waxay kausgaraynaysaa tani in qofku sidiisaba lixdiisa lixaad qaba iyo haddii wax ka dhiman yihiinba inuu ku qaracsiyay markaa naftiisa waxaad ujeedaa ninkani wuxuu markaa haddar u sheekaynayaa milyanis arday ah isagoo u khudbadaynaya markaa arrintiisa iyo siduu yahay markaa uu nolosha ka aaminsan yahay waxaad ujeedaa in dadka qaarkiis ay arrintan aad ula yaabaan markay arkaan maxaa yeelay iyagoo lixdooda lixaad qaba ayay haddana aanay aaminsanayn inaanay dhammaystirnayn oo ay doonayaan wax inay ka maqan tahay ninkan ayaa wuxuu ku sheegayaa marmarka qaarkood wuxuu leeyahay anigu waxaan aaminsanahay sideedaba qofka bini aadamka ah marka inta uu nool yahay adduunka joogo in wax ka dhimanaanay jirin haddii wax kaa dhiman yihiinna aad waxaysatid wuxuu aaminsan yahay sidoo kale isagoo aan luga lahayn gacmana lahayn inuu haddana aanu wax warwara adduunkan ku haynin wuxuu kaloo aaminsan yahay ninka kani sideedaba qofka haddii uu kalsooni ku qabo naftiisa inuu wax kasta oo awoodo u qaban karo waxaa kaloo ku cadaynaysa ninkani waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid ah in qofku haddii aanu luga lahayn iyo gacmo lahayn ay ku adag tahay in uu xaas ama sawjo yeesho saasay tahay haddana ninkani ismuu dhiibin wuuna guursaday gabadh ayuuna guursaday gabdhaha ka mid ah waxaa ninkani uu caddaynayaa nolosha bini aadamka inay tahay wax aad iyo aad u muhiima intuu adduunkan ku sugan yahay ninkan ayaa waxa uu kaaga sheekaynayaa had iyo jeer waxyaabaha ka qosliya ama had iyo jeer waxa uu ismayl garayo ama uu qoslo marka dadku weydiiyaan ayuu wuxuu leeyahay waxaan ku qoslaa waxay tahay inaan aaminsanahay inaan dadka ugu fiicanahay hadda waxaad nala heegtaa qofka lixdiisa lixaad qaba ama u dhammaystiran waa maxay differentiga ama farqiga u dhexeeya isaga iyo ninkan waxaad ogaan kartaa marka inaad adigu in badan ilaahay ku xamdinin aadna ogaatid in aad tahay qof dhammaystiran oo wax kasta oo nolosha soo wajaha ka gudbi karaa ma aha inaad ka warwartid waxyaabaha markaa familiga ah waxyaabaha adiga noloshaada khaaska ah waxyaabaha personalityga waxyaabaha dadka kale markaa ka imanaya iyo waxyaabaha markaa xawaadista ah ee soo imanaya ma jirto wax haba yaraatee kugu khasbaya in aad ku noolaatid cabsi hoosteed waa inaad ka baxdaa cabsida hoosteeda oo aad u baxdaa laydka ama nolosha iftiinkeeda waa inaad noqotaa qof adag waa inaad noqotaa qof faraxsan waa inaad noqotaa qof dhiirigelin ama wacyigelin badan oo aad dadkana ugu sheekeeya waxyaabaha noloshooda horumarin kara waxaad tahay qof aad iyo aad u muhiim ah waxaad tahay qof noloshiisa aad iyo aad ugu muhiimsan waxaad tahay qof wax qaban karaa waxaad tahay qof aaminsan in uu wax qaban karo waa inaad noloshaada mar kasta aad joogtid meel kasta aad joogtid aad experiencegaaga dadka aad kala qayb qaadataa